xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa tababaro dhanka garsoorka ah magaalada Muqdisho uga soo xiray garsoorayaasha heerar kala gedisan ee kubadda cagta waxaana xiritaankan ka soo qayb galay madaxda xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta tababarkan oo lagu baranayay isbedelada ku yimid shuruucda garsoorka sar u qaadida iyo adeegsiga aalada lagu ogaado tababarka garsoorka waxa maalmihii uu socday bixinayay gudoomiyaha guddiga garsoorka Soomaaliya Xasan Aadan Xaaji Brawish عويس عبد الله الشيخ يمعلمين تحرير الصومالي كوبدا عقتا كلا عبد الله باسالي المعلم محمد عبد الله فريري قدوميها جودي قرصورك الصومالية إسلا مركانا كميد أها معلمين توبركا وحكا بحينيي أي الشيغي إن توبركان أي أود تلقلين إن يسرقوا قادان هيركا أقونتا قرصورك الصومالية يسيدا يولجان قادي لها يندقود عالمك إن توبرada la badiyo إن قرصورياشا quality سر الله قادو aqoon korsigooda aad iyo aad joogto loo siiyo seminaarkana qayb ayuu ka yahay taa mana ahan kaliya garsoorka xirka koowaad iyo international kama ahan qorshaheena waa in garsoorayaasha yar yarka ah dalka Soomaaliya meel walba ay joogaan u furno aqoon korsi ku noqon karaan garsoor caalami ah ama heerka maanta caalamka uu ka joogo waan aaminsanahay in garsoorkeena Soomaaliya maanta uu yahay kan kaliya loo aaminsan yahay xagga ciyaareed iyo xagga شرفتها إني دورتان. حويها جود حرك الصومالي كوبدا عقتا دكتور يوسف محدين أحمد أيا جرسورياشا كرة دارمي إن وحي لبري لجا أركو ترتمد كوبدا عقتا جودها إيدي بدأ كحرير أهانا أي كود داري دونان كرو قاددة يهرمرين تجرسورك الصومالية. علمي يأقون أتصبرت أيا جرسورك نقط. سو حرجيني أمريكا علمي يأقون تأيا جرسورك نقط. إنه النقد ميت أديك كاسو مقض أو إيمج كويالا. oo wax qurux badan ku sameeyo oo ciise iyo sharaf ku yeelo marka waxaan aad maaragtay idinkaaga mahad celinayaa juhdiga aad soo geliseen garsoornimada waxaan rajaynayaa inay noqoto tababarada noocan oo kala markay dhacaan oo refreshmentiga oo maskaxdiina refresh gareynayo ciyaaraha soo socda insha Allah inay noqdaan image qurux badan idinkuna nagula amaano oo noqotaan kuwa u noqdo maxaa la dhahaa astaan waaxda garsoorka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa dhawaan shaacisay inay bilaabeen isticmaalka adeega casriga ah ee loo yaqaano on device monitoring physical fitness performance GPS kaas oo lagu ogaanayo heerka tababarka garsoorayaasha waxaana qalabkan dhawaan laga hirgeliyay qaaradda Afrika qaar ka mid ah garsoorka Soomaaliya ayaa u mahad celiyay madaxda xiriirka iyagoo balan qaaday inay ka soo bixi doonaan kaalintooda iyo wixii la baray garsoorka maanta caalamka ka qabta ciyaaraha qalabka ay heleen ee farsamada ay heleen ayaa maanta haysanaa وحكم لقى سعيد إن مركنا أشجع حوار تبارك نزاد نقطة إن تبارك واجه هو هذيك شخص كوهاي هذا الواجه وإذا كمبيوتر سا أو مركنا لوجيه تبارك هذا أرض كاجا سبيد كاجا لها واحد بقاسم مسي هذا أول بحنا يعني إن هذا اللي ورثته مع المتسال نقوله واحد بالكمبيوتر كي مركنا يشغل الله يركع. قدومي كحين كوادي حرك الصومالي كوبدا عكتا علي عبدي محمد على الشين يا واحد جرسور ككرة دارمي إني اللي بجباران dadaalkooda ku aadan kor u qaadista aqoonta iyo horumarinta si guulo waaweyn looga gaaro tartamada gudaha iyo dibadda kubadda cagta aan ka shaqeynaa dadka kubadda cagta ka shaqeeyo horumaray oo dheelayo meelaha waaweyn tagaya intaan oo kale dad ah ka shaqeeyay hal qof iyo laba qof wax ma qaban karto xiriirka waa dadkiis way tiris way yartahay garsoorka tiris way yartahay waxaan rabaa in la iska cashado waxaan rabaa hadii la yiraahdo in la xisaabtana way fiican tahay dadku inay soo ekaadaan xiriirku waxa lagu hayo waa siina garsoorayaasha waqas ban yahay gabagabadii xiritaanka gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa goobta ka sheegay in madaxda xiriirka ay juhdi iyo waqti ku bixinayaan waaxda garsoorka maadaama ay lafdhabar u tahay shaqada ay hayaan isagoo garsoorayaasha kula daarmay in wixii la baray ay ka sugayaan inay ku dabaqaan tartamada gudaha maxaa loo keenay farka way loo keenay adduunka dhan joogo way tigilka waxa la keenay macna goor technology la keenay golden goal la keenay waxyaabo talka laga noqday maxaa loo keenay qardaad dhacay waa maxaa marka imaanay dacwo kooxood la socdo world cup ugu daran waxa dacwooyin ka socda laakiin dacwooyinka socda inta badan waxay u badan yihiin silent maxay silent u yihiin waxay ka dhaxaysaa kaliya dadka ka shaqeynaya cid kale ma sheer garaynayso guddiga garsoorka garsoorayaasha commissionerka dadka technicalka iyo administrationka ka dhaxaysa bis intaas marka rabo inay saxaan intaas kaliya ay saxaan marka wixii inta idinkaga sheegay oo guddiga garsoorka inay sheegaan hal lagu dadaalo inay soo noqoneen workshop markaas wax taray